madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaadhay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka Galmudug 15kii bishan aynu ku jirno halkan oo uu ka furmay shirkii wada tashiga dawladda federaalka ah dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir madaxweynaha ayaa 7 casho ee la soo dhaafay ee uu ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb waxa uu shir gudoominayay shirkan ballaaran ee uga furmay madaxda magaalada Dhuusamareeb waxa sidoo kale madaxdu ay wada jir ula kulmeen guddiga kabaaraandega doorashooyinka oo soo gudbiyay warbixin dhameystiran oo ku aadan hindisihii doorashada lagu aadi lahaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxay qalinka ku duugeen heshiis siyaasadeed oo qeexaya hanaanka doorashooyinka dalka iyadoo ay ugu baaqeen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland in ay ku soo biiraan wixii hawl ah ee dhiman heshiiska shirka wada tashiga Dhuusamareeb waxaa ku xusan in la isla qaatay hanaanka ergodeegaan doorasho iyadoo la isla qaatay in ergada kursi kasta ay noqonayso 301 qof oo ay soo xulayaan guddi ka kooban odayaal iyo bulshada rayidka ah ee ka soo jeeda beesha kursigaas wadaagta iyadoo ay arintaas fududeynayaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranku tani waxay ka dhigan tahay in la sii ambaqaaday geedi socodka dimuqraadiyeynta dalka iyo in weji cusub loo furay hiigsiga shacabka Soomaaliyeed ee ku naawilaya in ay helaan xuquuqdooda dastuuriga ah ee ku aadan in ay doortaan mas'uuliyiinta ay ku aaminayaan talada dalka waad mahadsantahay